بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبن كان dambe waxaa la arkay nin jilicsan sidoo kale waxaa la arkay gabadh reerka cashada dabka u saaraysa marka la gaaro 8 habeenimo. sidoo kale waxaa la arkay xaasuu ninkeedu guriga yimi balse iyadu baraanka daawanaysa. sidoo kale waxaa la arkay aabe carruur dhalay oo aan shaqo tagayn. waxaan filayaa dhibaatooyinkan iyo kuwa ka badan inay ku haystaan. saadaradeed ayaan maanta muuqaalkeena kaga hadli doonaa. marka hore shaahaga soo qaado sidoo kalena muuqaalkan like saar siin Ibrahim muuqaalka haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanid. ugu horeyn maxaa keenaya dhammaan caqabadaha aan soo sheegnay? goorma ayaa inaga sidan inagu bilaabatay? sidee ayaan kaga bixi karnaa dhibaatadan ama caqabadahan aan soo sheegnay? waqtigu waa waxa uu qaalisan ee Ilaahayna siiyay. sidoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaalaha Ilaahayna weydiinaya maalinta yawmul qiyaamah. haddaba inaga ka ummad ahaan Ilaahay wuxuu ina siiyay 60 ilaa 70 sano. waqtigaas yar ee Ilaahayna siiyay wuxuu u baahan yahay inaan kaga faa'iideysano adduunyada iyo aakhiraba. intaa kadib walaalkay ama walaashay intee sano ayaad adigu maanta jirtaa? maxaad ku soo kordhisay adduunyada? miyaad seexataa oo soo qacdaa uun? dabcan jawaabaha su'aalahani waa kuwayna sugaya. dhibaatada ugu weyn ee ayna haysataa waa isticmaalka baraha bulshada. dhibaatooyinka soo sheegnay oo dhamina meesha sababtoo ah waa halkan. haddaba maxaa loo sameeyay baraha bulshada? maxaynu inagu soo isticmaalnaa? masalan gaadhay waqtigii aynu joojin lahayn inaan waqtigeena inta ugu badan ku bixino daawashada baraha bulshada. 50 sano ka hor haddaad dabacdo qof jooga laascaanood inaad la xidhiidho adoo jooga Muqdisho ama se aad warqad u dirto, warqadaasi waxay jidka sii socon jirtay maalmo iyo habeenno. isagu marka uu soo jawaabana waxay soo socon jirtay maalmo iyo habeenno. sidoo kale qofka warqadda qaadaya wuxuu kaxaysan jiray faras. labada qof ee warqadda u kala qaadayana dabcan xoolo ayuu ka qaadi jiray. arrinkan oo beriga caqabad ahaa ayaa waxaa ka dhalatay fikradda ah in la sameeyo isgaadhsiin. ugu dambeyn waxaa lagu guulaystay isgaadhsiintii dalka gudihiisa ahayd. haddana waxaa caqabad noqotay dadkii kala joogay waddamada kala fogfog. arrinkan oo isna caqabad kala noqday ayaa haddana waxaa la ikhtiraacay internet iyo sidoo kale mareegaha la isugu gudbiyo xogaha sida WhatsApp iyo Facebook iyo wixii la mid ah. haddaba sidaa daraaddeed waxaa laga raystay dhibkii laga mari jiray xog gudbinta. haddaba nimco waliba nusqaan leh maxaa ka dhashay? maxaase ku hoos duugan maanta isticmaalka baraha bulshada? in yar haddaan dadka hore dib ugu noqono, dadka hore waxay ahaayeen dad karti badan oo qofku wuxuu awoodayay inuu 5 habeen iyo 5 maalmood si socdo isagoo waxba cunin waxna cabin. raggu waxay ahaayeen rag adag, dumarkuna waxay ahaayeen kuwo shaqo badan, sidoo kalena xoolo jecel oo aan xoolo hunni ahayn. hunniga waxa la yiraahdaa qofka aan xoolaha danaynin. sidoo kale dadku waxay ahaayeen kuwo xifdi badan oo waatii sayidku ku canaanayay xaafadkiisa ama ninkii gabayga geyn jiray meelaha loogu talagalay. sidoo kale waaga wiilka yar ee dhalinyarada ahi subaxii shaqada uu bilaabo habeenkii ayuu ka soo galcaraabi jiray. si kastaba ha noqotee maanta baraha bulshada wuxuu noqday cudurka keliya ee si maalinle ah inoogu dhaca. yacni waa khatar aynu si maalinle ah u isticmaalayn. baraha bulshada dadka isticmaalaa waa laba qaybood, qayb faa'iido iyo qayb khasaarta, laakiin iyagu isu haystay inay faa'iideen. haddaan ku horeyno qaybta khasaarta, waa qayb waxay soo gudbiyaan heeso ama baraanka ama wixii la mid ah. qaybtaasi naftoodii ayay khiyaamaynayaan. yacni horta lacag way ka helayaan laakiin wax kale oo horumar ah ma samaynayaan. yacni xirfad ma baranayaan, ummad ma hogaaminayaan, ma wacyigelinayaan, balse ummadda waxun ayay u horseedayaan. qaybtaa waxaa la xidhiidha dad badan oo daawadayaal ah oo laga yaabay inaad adigu ka mid tahay. haddaadan adiguna ka mid ahayn waxaa dhici karta inuu wiilkaagu ka mid yahay amase gabadhaadu. maalin walba waxaad daawataa fiideo lagana yaabay inaad ku bixisid waqti fara badan sida 1 saac, 2 saac ama 6 saac amase waqtigaaga badankiisa waxaad ku bixisaa inaad daawato riwaayad, wax qosol leh, prank iyo wixii la mid ah. haddaba waxaa isweydiin mudan waxaan aad daawanayso lacag kama helaysid, aqoon kama faa'iidaysid, sharaf kama faa'iidaysid, balse adiga ayuuba wax ku yeelaya. oo waxaa dhacda dadka waqtigooda ku bixiya social media waxaa ku dhaca xanuuno kala duwan oo ay ka mid yihiin hurdo yaraan iyo hurdo la'aan. dabcan xanuunka waxaa keenaya qofka waxaa la doonayaa 8 saac inuu seexdo, laakiin ka waran hadduu qofku 1 habeenimo seexdo. feejignaan la'aan dadka qayb ayaan maanta ogeyn gurigooda wixii ka dhacaya. yacni sida caadiga ah qofku markuu mashquul yahay iyo marka kale wuu kala duwan yahay. qofku hadduu mashquul galo waxa agtiisa ka dhacaya ma ogaan karo. xataa haddii aad la hadasho sidii qof soo hambabaray oo kale ayuu noqonayaa oo kula hadlaya. dhiig kar, lafta qoorta oo ka xanuunta,
iminka xilligan la taagan yahay ma awoodid inaad in yar hoos eegto balse ka waran adigoo video daawanaya intee saacadood ayaad awooddaa inaad qoorta laadlaadiso ama aad hoos eegto ama kor eegtaba niyad jab badan qofka haddii ay ku bataan khiyaaligu nolosha oo dhan khiyaali ayuu moodayaa sidaa daraaddeed wax kasta waxay leeyihiin wax fudud haddii caqabad yar ka hor timaado wixii oo dhan faruu ka qaadayaa jimicsi la'aan sida caadiga qofka waxaa laga doonayaa salaada subax markuu ka baxo inuu shaqo tago oo uusan hurdada dib ugu laaban sidoo kale shaqadu waa jimicsi socodku waa jimicsi waxbarashada dhabta ah waa jimicsi laakiin ka waran qof markuu saa u soo kaco taleefan daawasho gelaya oo laga yaabo inuu duhur ku gaadho maskaxda waa shaqo badan qaban maskaxdu waa inay shaqaysaa wax isku dartaa wax kala goysaa cilmi baaris samaysaa ka waran haddii aynu inagu maskaxdeennii baraanka ku celcelinayno goormay wax baadhaysaa goormay wax qabanaysaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad gurigaaga kala kulato caqabado kala duwan sida inaad nacdo shaqada in ninkaaga ama xaaskaaga ay ku dhadhami weydo waayo maanta oo dhan ayaad waxaad daawanaysaa 100 qof oo kala duwan inaad noqoto ma shaqaysi ama caajislow sidoo kale waxaa kaa dhimanaya wax soo saarka oo waxaad noqonaysaa qof bilaa hadaf ah dabcan waxaan filayaa hadda inaad fahamtay shabaqa lagu daadiyey qaybta faa'iida ummadda daawanaysaana ay faa'iidaan kuwan waxaa ka mid ah dadyowga ka sheekeeya taariikhda culimada iyo sidoo kale dadka ka hadla arrimaha cilmi baadhista dabcan qofka soo sameynaya videoga waxaa laga maarmaan ah inuu wax baadho waqti ku bixiyo sidaa daraaddeed baadhitaanka uu wax baadhayaa isaga faa'iido ayay u tahay oo xataa hadduusan videoga lacag ka helin waxa uu ka faa'iidayaa aqoon sidoo kale wuxuu baranayaa samirka oo videoga samayntiisu waqti ayay u baahan tahay ugu yaraan markaad doonayso inaad video samayso waxaa kaaga baxaya waqti gaadhaya 5 saacadood ama se ka badan arrinkan aan soo sheegnay waxaa ka siman cid kasta oo video samaynaysa videoyada qaarkood sanad baa la sameeyaa oo kuwa waxaa ka mid ah filimaanta filimku wuxuu socdaa 2 saac iyo badh laakiin waxaa la samaynayaa sanad ama ka badan sidoo kale waa inaad fahantaa falsafada meesha ku jirta oo ah waxaa sanad lagu bixinayaa sidii videoga aad adigu 2 saacadood ku daawanayso lagaaga gadi lahaa oo aadan in yarna uga tiirsan adiguna maalin walba waad aqbalaysaa oo waxay ku gaarsiiyeen heer aad u oyndo waxaan jirinba yacni haddii aad tooruhu guulaysto waad farxi haddii uu guulaysan waayana waad murugun iyadoo waxa aad daawanaysaa dhammaantood ay ahaayeen been aan ku soo noqonno mawduucini dadka u soo gudbiya ummadda waxa faa'iidada leh ma keligood baa faa'iidaya jawaabtu waa maya oo adigaagan xataa videogiisa daawanaya waad ka faa'iidaysaa oo waxaad la baxaysaa videogan aqoonta uu xambaarsan yahay sidoo kale waxaad ku dhiiranaysaa inaad adla samayso muuqaalo kuwan oo kale ah oo aad u soo gudbiso ummadda sidoo kale dadkani iyagu dadka xumaan uma horseedayaan laakiin taa beddelkeeda iyagaaba wanaag u horseedaya ugu dambayn sidee kaga bixi kartaa aminkan xun ee social media una noqon kartaa qof ka guulaysta nolosha oo dhanka wanaagsan u iisha marka hore waqtigaaga u qaybi 3 meelood waqti shaqo haddaad shaqaale tahay ku ekow shaqadaada haddii aadan shaqo haysanna berri ka bilow inaad shaqadoon noqoto oo subaxiiba raadso shaqada waxba dib ha u dhigan wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca oo aan xumaan ahayn markiiba ku dhaqa waqti wax akhris waqtigaaga u badan waa inaad ku bixisaa wax akhriska waayo wax akhrisku waa muhiim haddii uusan muhiim ahayn nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii lagu bilaabayay waxyiga maxaa lagu yidhi dabcan waxaa lagu yidhi iqra macnaha iqra maxay tahay waa akhri marka anigoon wax kaleba kuu sheegin waxyigii ugu horreeyey ee soo degay wuxuu yidhi akhri marka maxaa kaa hortaagan inaad wax akhriso akhrisku wuxuu kobciyaa maskaxda wuxuu furaa fahamka akhriska waxaad ka helaysaa waayo aragnimo yacni waxaa la dhahaa shaygan aad akhrinayso waxaa laga yaabaa in la qoray 100 sano ka hor sidaa daraaddeed waxaad ogaanaysaa 100 sano ka hor sidii ay dadku u noolaayeen iyo sidii u dhaqmi jireen akhriskana waxaa lagu bilaabaa qur-aanka kariimka maxaa yeelay isaga ka caajisi maysid laakiin waxyaalaha kale waxaa laga yaabaa inaad ka caajisto waqti cibaadada rabbigaa ku dadaal nafta ku qasab maxaa yeelay waaba hadafka keliya ee lagu abuurtay maxaa yeelay rabbigaa wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insiba wax kale umaanan abuurin inay icaabudaan mooyaane intaa wixii soo raaca oo yacni adiga waqti kaa qaata ha noqdaan wax adiga wax kuu faa'iidaynaya lana soco waqtigan faraha badan ee aad iska hayso ee aad marba meel ku bixinayso dad ayaa waxay leeyihiin yaa waqti kuugu dara yacni 24 saacadood yaa wax kuugu dara
mashquulka haysta dartii. Haddana saas oo ay tahay, iyagu wax faa'iido leh ayay ummadda u hayaan, naftoodana u hayaan. Ugu dambayn, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Inta aynu muuqaalkan ka xiiso badan ku kulmaynana, sidaa iyo nabadgelyo.